gudoomiyaha gobolku wuxuu aad iyo aad uga mahad celiyay waajibkii la qaatay iyo gurmadka wuxuuna ka tacsiyay guud ahaan arrintii ka dhacday degmada wadajir ka dhacday oo shacab shaqooyinkooda gudanayay la dhibaateeyay dhalinyaro ciid la siiyay iyagoo ciiddii la siiyay qayb ka mid ah shacab masaakiin inay ku caawiyaan raba ee cadowgu dhibaateeyeen iyana dee baaritaan baa socda waa idinla wadaagaynaa markii la soo gabagabeeyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda wuxuu aad iyo aad uga hadlay arrinta ku saabsan amniga iyo la shaqaynta laamaha ammaanka oo magaaladan waxay u baahan tahay amni iyo kala dambayn waxaa lagu guulaystay wejiga koowaad in magaalada la xasiliyo oo ciidamadii laga saaro guud ahaan haddana ay shaqeeyaan ciidamada isku dhafka ah ee ka shaqeeya xasilinta magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu aad iyo aad ugu dheeraaday ra-iisul wasaaruhu dowladnimadu waxay tahay iyo qiimaha ay dowladda u leeyihiin guddiyaasha degmooyinka oo ah aas-aaska ama bayska ay ka bilaabanaysa dowladnimadu shacabkana ay mas-uul ka yihiin una madax bannaan yihiin yani degmooyinka ay xukumaan ay maamulaan sidoo kale waxaa laga hadlay arrinta soo socota ee munaasabadaha oo hadda nagu soo dhow ugu soo horeyso ciidii oo ay ku xigto 26 Juun ay ku xigto 1 Luulyo oo ay ku dhex jirto 27 Jabuuti inay xornimada qaateen iyana dee gudiyadii shaqayn lahaa iyo magaaladan sida looga shaqayn lahaa ayadoo heer qaran iyo heer gobol intaba laga shaqaynayo iyana aad iyo aad baa looga hadlay maanta oo la isla afgartay in magaalada oo dhan la naleeyo oo degmooyinka fooraha ah sadayniile iyo kaxda iyo degmooyinkaas ay nalal helaan calaamo lagu wada xiro waddanka iyo guri walba calan isna oo lagu xiro maadaama ay maalmo qaran yihiin iyana waxyaabaha aad iyo aad la isugu afgarta iyo ka mid ahayd sidoo kale nadaafadda aad looga hadlay oo magaalada shaqooyin badan nadaafadda ah laga wado guud ahaan waa la isku afgartay in maalmaha xurriyaddu iyo caasimadda u ekaato caasimadaha dhigeeda oo ay laga shaqeeyo nadaafadda oo degmooyinka iyo waaxaha ku shaqada leh ay shaqooyinkaas qabtaan sidoo kale waxaa aad iyo aad looga hadlay inay degmooyinku soo gudbiyaan qorshe howladyadooda inay soo gudbiyaan iyana waxyaabaha la isku afgartay maanta ay ka mid ahayd mar kale waxaan ka tacsiyeynayaa arrintii ka dhacday degmada wadajir oo si wada jira madaxda qaranka iyo gobolka intaba ay ka tacsiyeyeen shacabkii masaakiinta ahaa iyo howlwadeennadii dhibaatada ku gaartay intii dhimata Allah u naxariisto inta dhaawaca Allah bogsiyo ummadda waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliya waxaa ku waajiba inuu ka qayb qaato amniga inuu ka qayb qaato soo gudbinta cadowga ummadda inuu dhibaateeyo raba in degmo inta la tago la qarxiyo shacab loo qidmaynayo la dhibaateeyo waxay ku tusaysaa awood darrida iyo tabar darrida haysata shabaabka iyo qolooyinkaas dhammaantiin meediyahan aad baad u mahadsantihiin waxaan aan ku daro ugu dambayn magaalada waxaa jooga fanaaniin kuwana way imaanayaan kuwana way horey u joogeen dhammaantood in la soo dhoweeyo way magaaladu tahay magaaladoodii caasimadoodii tahay u baahan yihiin inay ka qayb qaataan maalmaha xorriyadda iyo fantasiyaha si loo gaaro loo helo caasimadan waxay caasimad ku tahay in ummadda Soomaaliyeed leedahay fanaan walba Soomaaliyeed ee magaalada yimaada waa soo dhaweynaynaa si nabada oo xorriyad ku jirta ayuu oo fankiisa iyo fantasiyiisa ummaddiisa kala qayb qaadanaya inta joogta way imaanaya iyo kuwa maanta yimid waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho